يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار برسولكم صلى الله عليه وسلم مالنكي هبينكي ملائكة بدوشين اسكو عربين اسكو بدليسا ملائكة الليل باجرتا وهبينكم بيمنيان أعماش أضموها يقبنيان بقريان ملائكة بالنهار باجرتو أعماش أضموه مالنكي قبنيان بقريان يكون لأن بني آدمكم أشرف المخلوقات ويان بني آدمكم إلى يكتي سقيمة وين بليه مركا ملائكة دين عائلة هيون نقضان بلهي ويدين يا كيف تركتم عبادي الضوما هي سياد كغتي مادين وريسنا يا حالة الضوميس أي كجران يسوق كوب ولبا ملائكتيس مركا الملائكة إليهن أن كل 40 إلى يكتيس اللقين وأنت في عنه ويان أعماشا الضومها والوناكسن أعماش وذو وناكسن وبايلها إلا الرفعية بليل وحق سر الله قاضع أما بدك حن أعماش وضحن حق إلهي لما بقيه بقواس سجين إن كتاب الفجار لفي سجين نارتج سجين ليلة عيال لقى صوت ديوان قال يا مقعدو ده يا أعماشو ده حوصبا لقيه أيك والعياذ بالله إلهي نظم يلو markaasuu malagii leeyahay waxaan ka imanay iyakoo tukanayna waanu tagnay salaadii casar baan tagnay salaad bay ku jireen salaadii subax baan ka imanay salaadna way ku jireen micraajka markii nabiga la dheelmiyay calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay abul bashar aadam calayhi salaam xagga midig markuu dayana farxaya oo qoslaya xagga bidix markuu dayana murugoonaya nabigu jibriil calayhi salaam ayuu weydiiyey daliilkiisii uu ku yiri yaa jibriil waayo buri ninkan dhararkan iyo quruxdan ilaahay siiyey ee markuu xagga midig dayana farxaya xagga bidix markuu dayana murugoonaya abul bashar wa aadam calayhi salaam xagga midig markuu dayo waxa la tusaa ubadkiisa inta wanaagsan acmaashooda wanaagsan baa la tusaa oo dadna waa ku farxa xagga bidix markuu dayana ubadkiisa inta xun acmaashooda xun ayaa la tusaayo dadna uu ka murugoodaa buu yiri sida aabuu ubadkiisa soo ma kala jeclo taasoo kale weeyaan ka maskaxda adag la ee saaqadka ee waalid inkaarka ee caaqa aabuu mar walba uu neceb yahay kaas wadayada markay yidhahdaan waa ka wiilkaagii maa wuxuu dhaha war kanan uma dhalin wax dhalay garan maayo buu dhaha yani akhlaaqdiisa xun ayaa karahsiinaysa aabbaha laakiin ilmaha fiican ee tacliimta ku fiican ee adaabta ku fiican ee waalidka u dhaga nugul ee baariga ee waalidkiisa u samafalaya aabbuhu uu ku faanaa ninkanun baaba iga hadhayaan u malayn buu idhahdaa ya saasoo kale acmaashan aan qabanayna adduunyada aan qabanayna bini aadamku ay qabanayaan aabaheen aadam calayhi salaam acmalna way ka farxinaysaa acmalna way ka murugeynaysaa famarkaa insaanku waa ilaahay baa karaameeyey khalqiga kaloo dhan ilaahay abuuritaankooda markuu ka warramay wuxuu yidhi khalaqna waan abuurnay khalaqna asamaa khalaqna alard waan abuurnay buu ilaahay laakiin aadam calayhi salaam abuuritaankiisa ilaahay markuu ka warramay wuxuu yidhi khalaqtu biyadaya qaala yaa ibliisu maa manacaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya astakbarta am kunta min alcaaliin ilaahay baa leh yaa ibliis maxaa kuu diiday oo kaa manciyay inaad u sujuuddo kuwa anigu aan gacantayda ku sameeyey subxaana allah waa tashriif ilahay bini aadamka u sharfayo wanafaqtu fiihi min ruuxii buu ilahay weli ruuxdayda markaan ku afuufana faqacuu lahu saajidiin baa lagu amray malaa'igta marka bini aadamkan ilaahay uu karaameeyey karaamu ilaahay siiyey karaamada bini aadamkuna baa la yidhi jirhkiisa maaha wuxuu haystana maaha waxa uu ka fikirayana maaha waxa uu dadaalkiisa kusoo saarayana maaha qofka bini aadamku wuxuu mukaram musharaf uu noqonayaa waa marka ilaahay awaamirtiisu ay noloshiisa timaado bas bini aadamka daatadiisu waa dhiig iyo dheecaan iyo malax iyo ka buuxda waxba dhima mala jirhkiisu waa turaab minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum ciid baa ilaahay naga sameeyey ciidna waan ku noqonaynaa dhiig iyo waxay naga buuxa maaragtaana iyo sindho iyo uus iyo malax wax uu bini aadamka jirhkiisu qiimo leeyahay ma jirto bini aadamka daatadiisu qiimo ma leh waxay maanta bini aadamku adduunyada ay ku dadaalayaanna qiimo uma yeeli kara bini aadamka
لأن أشياء الدنيا تالودن إلهي وحكو كانوا كو حقيقيي فكر كإنسان كيجود كإنسان وحنا الدنيا يالودن أشياء اللي يرادنا بني آدم كأو باهنتاي بقاري بلا بشر ما سوى كرو دياردنا بلا بني آدم ما سوى كرتو لعقت بلا بني آدم قيمة يلن ما يسو ما فهمت ذهب بلا بني آدم قيمة يلن ما يو waxaan maaragtaan adduunyada yaallo dhan insaanka juhdigiisa ilaahay ku keenay marka waa wax bini aadanka qiimo u ziyaadinay maaha waa wax bini aadanka u baahan bini aadanku laakiin maanta waxay u arkeen inay iyakuna ashyaad u baahan yihiin inaan gaadhi u baahan nahay oo lacag u baahan nahay oo dahab u baahan nahay oo warshado u baahan nahay oo kursi u baahan nahay oo shahaado u baahan nahay oo dukaan u baahan nahay oo beero u baahan nahay waxaan aad u arkaysa inaad u baahan tahay baa iyaka adiga ku baahan beerta haddii bini aadan ka shaqayn waayo qiimo ma yeelataa may guriga haddii bini aadan geli waayo ka warrama iska duma warshadda haddii bini aadan ka shaqayni waayaan waxba ma soo saarayso lacagta haddii bini aadan gacanta ku qabani waayaana qiimo ma leh lacagtu maxay qiimo ku yeelata bini aadanka qiimo u yeelay marka bini aadanku maanta wuxuu u arkay inuu u baahan yahay wax isagu uu sameeyey oo isaga la'aantii aan dhaqaaqay buu arkay inuu u baahan yahay lama baahan hadday isku tagaan maxaa ziyaadaya baahinba ziyaadi eber uge eber bini aadanku isaga keligii halkaa haddii la dhigo laa shay waxa u taraya ma jirto ashyaadana adduunyada taalloo dhanna haddii la idhaha bini aadanku ku iman maayo iyana waxba tari mayso lacag keligay soconaysa wax isku soo gadaysa ma jirtaa ma jirto bini aadanku tacalluqiisu ashyaada maaha bini aadanku waxaa la doonayaa wuxuu qiimo ku yeelanayaa waa marka awaamirta ilahay noloshiisa ay timaado bas markaasuu qiimo yeelanaya bini aadanku awaamirta ilaahay amarka ilaahay amarka ugu horeyna waa maxay macrifada ilaahay macrifada ilaahay baa bini aadanka lagu qiimeeya qadra almacrifa qiimo yeelan hadba intuu ilaahay uu garan waayana uu sii qiimo dhacaya hadba intuu lacag haysta maaha caalamka maanta dadka caalamka ku nool oo dhan way qaldameen dariiq qaladaa la wada haystaa waxay u arkeen makhluuq inay u baahan yihiin inay lacag u baahan yihiin inay warshado u baahan yihiin inay hub u baahan yihiin inay tijaarad u baahan yihiin inay beero u baahan yihiin uma baahno way qaldameen bal waxaasoo dhan ee soo sheegnoo dhan waa wax bini aadanka u baahan shay adiga ku baahan baahidaada ma gudi karo qiimahaaga kor uma qaadi karo lidaalika bini aadanku marka ay qaladkaa ku dhaceen way qiimo beeleen hoos ba u dhaceen qiimahoodii laakiin bini aadanku waxa uu qiimo ku yeelanayaa waa markuu amarka ilaahay qaato bas amrullah nolosheenna markii ilaahay axkaamtiisa iyo sunnadii nabiga sal alla alay slam markay timaado ayaa ilaahay bini aadanka kor u qaadaa markaasuu bini aadanku qiimo yeelanayaa markaasuu ilaahay addoonka jeclaanayaa